barsaab ku-xigeenka gobolka Awdal Axmed Diiriye Cabdilaahi ayaa maanta faahfaahin ka bixiyay kulan uu shalay la qaatay guddiga heer qaran ee dabdamiska iyo taliyaha dabdamiska heer qaran oo iyagu maalintii shalay ku joogay magaalada Boorama socdaal shaqo ay ku kuurgalayeen xaaladda dabdamiska magaalada Boorama oo muddooyinkii ugu dambeeyay kuwa sidii loogu talagalay aanan u shaqaynin dadweynuhuna ayna mahadin tan iyo muddo gaadhaysa 4 sano ay dhex yaalaan xafiisyada kala duwan ee saldhigga iyo xafiiska barsaabka oo aanan weli wixii loo soo iibiyay ama hawshii loogu talagalay aanan marnaba lagu mahadinin waa kan kusimaha barsaabka oo ka sheekeynaya kulankii dhex maray iyo waxa ka duwan ee uu sheegayo wixii hore xaaladda dabdamisku ay ugu sugnaayeen waxa uu ku jawaabay sallallahu alayhi wasallam waxa maanta noo yimi wafd balaaran uu hogaaminayo taliyaha ciidanka dabdamiska Jamhuuriyadda Soomaaliland agaasimaha dabdamiska boorka qaranka ee dabdamiska waxaanu ka wada hadlaynay sidii loo dhisi lahaa xafiis cusub oo gobolku yeelanayo ciidanka dabdamiska runtiina si fiican baan isku laaf garanay waxayna ka mid noqon doontaa mashaariicda gobolka laga hirgelin doono ee nagu jirta miisaaniyadda sanadkan waxay ka mid tahay waxqabadka xukuumadda waxaan jecelnahay ciidan tababaran oo muxuu ahaayay inay gobolka muxuu hadii aan leedmo shaqaale cusub oo la qaadan doono gobolka yeelan doono ciidan cusub oo ciidanka dabdamiska loo tababari doono xaruntaasina waxay noqon doontaa xarun weyn oo qalabaysan oo runtii loogu talagalay ciidanka dabdamiska runtii gobolkana waxa weeyaan mashaariic badan oo xukuumaddu ka hirgelisay wayna soconayaan mashaariicda horumarka ee xukuumaddu ka wado gobolkan Awdal sidoo kale maraan weydiinay waxa ay kaga duwanaan doonto dardargelintan cusub ee la dardargelinayo hawlaha dabdamiska magaalada Boorama hore dhibaatooyinkii u haystay xagga shidaal la'aanta iyo dadka ka shaqeynaya ayaa waxa uu ku jawaabay gudoomiyuhu sida tan kulli caqabadihii xagga dabdamiska gobolkan jirayna waa la xaliyay runtiina waxaanu jecelnahay inay sideedii u shaqeyso ciidankaasina uu noqdo ciidan ka soo baxa shaqada loogu talagalay waxaanu jecelnahay inaanu halkaa ka sii wadno hadii aan leedno waxay yeelan doonaan budget u gaara oo runtii miisaaniyaddan ugu jirta runtiina sidii loogu talagalay ay u shaqeyn doonaan hadii aan leedno taana waan isla garanay waan dhameynay hadii aan leedmana sidii loogu talagalay u shaqeyn doonaan waxay noqon doonaan ciidan qalabaysan oo shaqadooda waqti kasta iyo saacad kasta loo baahda guta aad baan masantii وهوري أحمد هوري شبكة عالمية بورما نيوز مقالة بورما.